intii u dhaxaysay sanadihii 1633 ilaa 1651 Julia Tufana waxa ay sabab ay u noqotay in ay soo gabagabayso nolosha in ka badan 600 oo rag ah oo si weyn ay u soo qorshaysay dilkoodii oo ay sumaysay waxaana daawooyin sun ah ay ka samaysay ay ragga ay ugu dhiibi jirtay haween intoodii badan dhibaato iyo aflagaado kala kulmi jireen raggoodii kuwaasi oo doonayay in ay ka takhalusaan 20 sano ee ugu dambeysay qisadani rag badan ayaa la dilay meedkoodina waa la aasay iyadoo aan la helin wax cadeen muujinaya in la sumeeyay Julia waxa ay noqotay baadiriye soo jiidatay haween badan oo ragga ay ka baqaan intii ay nooleed inta aan la daldalin haddaba maxay ahaayeen haweenkan raggoodii loo adeegsaday in ay sumeeyaan casrigii hanaqaadka ee dalka Talyaaniga qarnigii 17aad waxaa jiray in haweenka badankoodii lagu qasbi jiray in ay ragga ay guursadaan sida caadada ahna waxa heshiin jiray labada qoys haweenkuna ma lahayn wax ra'yi ah oo in ay doortaan qofka ay guursanayso haweenkaasi uma furneen wadiiqad in ay iska furi karaan ragga sida qasabka loogu daro kaliya wadada u furan oo ay noloshaasi aan farxadda ku dhisnayn kaga bixi kareen ayaa ahayd geeri badankoodii waxa ay ahaayeen kuwa soo koraya oo da'doodii aan ka weyneyn 14 waxaana loo guurin jiray ragga da'doodu ay tahay 30 markii uu dhaco arooska kuwa wax guursaday waxa ay awood ay u lahaayeen in sida ay doonaan ay u maamuli karaan xaasaskoodii way garaaci jireen iyagoo aanan ka baqaynin in war ama dacwad ay uga timaado waalidiinta dhinaca gabadha sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay barta medium maxay u doorbidi jireen in haweenkani garoobo ay noqdaan xilligaasi haweenku ma lahayn awood dhinaca hogaaminta ama in ay bulshada ay ka dhex muuqdaan saddex kaliya ayaa u banaanaa oo kala ah kow in ay guursato oo dhibka ay u dulqaadato ama in ay dhalinyarnimo ay ku duqowdo ama garoobo in ay noqdaan oo ay saygoodii nafta ay dhaafiyaan iyadoo xaaladdu sidaa ay tahay waxaa dhalatay Julia Tufana sanadkii 1620 waxaana lagu dhalay magaalada Palermo ee dalka Talyaaniga markii ay gaartay da'da 13 saraakiishii wadanka maamulisay ayaa daldalay hooyadeedii Tufina markii lagu soo eedeeyay in ay dishay saygeedii Faransiis aabaha dhalay Julia muddo markii laga joogay geerida hooyadeed Julia way guursatay waxaana ay dhashay gabar ay ugu magac dartay Jerusalem Sabara iyadoo carmalad ayay xilligaasi ay noqotay waxaana iyada iyo gabadheedii ay u guureen magaalada Napoli kadib waxa ay ka sii aadeen Roma xilligaasi Roma waxa ku sugnaa rag khibrad badan oo iyagu dambiye sir ah ka geysan jira halkaasi kuwaasi oo la sheegay in ay kiimikada ay sameyn jireen shaybaare ayay lahaayeen sidoo kale waxa ay xirfad ay u lahaayeen sameynta sixirka madowga ah waxa ay xalin jireen dhibaatooyinka ay dhaqaatiirta iyo baadariyada waqtigaasi jiray aysan waxba ka qaban karin iyaga oo hawshaasi u istaagi jiray waxaana ka mid ah waxyaabihii ay sameyn jireen in ilmuhu ay haweenka ay ka soo ridaan Julia iyo gabadheedii waxa ay bilaabeen in ay sameeyaan waxyaabo ay isku qurxiyaan haweenka ayna hablaha ka iibiyaan waxa ay shaqadaasi intii ay waday soo jiidatay dad badan oo rukun u noqday waliba waxa ugu badnaa haweenka dabaqa hoose ee dhibaatada kala kulma iyo aflagaadada aragoodii Julia ayaa ka dhageysatay haweenkaasi dhibka ay qabaan waxaana ay go'aansatay in ay caawiso kana taageerto sidii raggaasi ay nolosha u dhaafin lahaayeen iyagoo la sumeynayo Julia waxa ay askaraysay in ka badan 200 oo qof oo caawin ahaan ay u qoratay marka hore waxa ay sameysay haween yar oo ay ku kalsoon tahay oo gabadheedii ay ugu horeyso sidoo kale waxa la shaqaalaysiiyay baadiri Romaaniyaana oo haysta diinta Katoolikada waxaana mas'uul uu ka ahaa in uu u keeno wax badan oo maadada kiimikada ee zarniq loo yaqaano waxaana uga soo qaadi jiray walaalkiisa oo lahaa meel farmasi ah Julia waxa ay qaybisay suntan oo ay ka sameysay maadadii kiimikada ahayd ee zarniq rasaas iyo geedo kale oo sun ah waxaana ay u sameysay labo si mid koowaad waxa ay u sameysay sida waxyaabaha la isku qurxiyo mid kale waxa ay u sameysay waxyaabo weelal lagu rido oo baadariga loo dhiibay suntan waxa ay ugu magac dartay Aqua Tofana
wax midab ah ma lahan wax dhadhanna ma lahan waxuu awood u leeyahay inuu qofka ragga ka takhaluso isaga oo 6 jeer la siinayo maalmaha isxigxiga si nolosha loo dhaafiyo haweeneydan caqliga badan ayaa haween badan uga farxisay in ay marka ay suntaasi raggoodii siiyaan ay xorriyad ay heli doonaan siinta suntan qofka ayaa ahaa mid basiid ah ama fudud waxa si fudud loogu milayaa raashinka ama cabitaanka qofka uu cabayo iyadoo aysan lahayn wax midab ah ama dhadhan kale qaybta koowaad marka qofka uu qaato waxa ka soo muuqanaya ama uu isku arkaya qabow badan daal iyo madax xanuun marxaladda labaad waxa uu qofku u galayaa in uu ka cawdo xanuun dhinaca caloosha ah oon fara badan iyo matag marka ugu dambaysa ee saddexaad ama afraad haddii uu gaaraba oo dawadan la siinayo qofkaasi waa uu dhimanayaa qofka dhakhtarka ah ee baaraya meydka qofkaasi ayaa isagu u suurtagelaynin in uu ogaado waxa qofkan uu u geeriyooday kaliya dhaqaatiirta waxa ay ku salayn jireen cuduradii maalmahaas uu xanuunsanaa uu la tacaalayay haddaba waxaa la soo gaaray xilligii la ogaan lahaa khiyaanada juuliya markii ay ka takhalusay in ka badan 600 oo rag oo la sumeeyay hadda haweeneydan waxa ay isku dayaysaa in ay sumayso saygeedii waxaana jirta ayaa la leeyahay hore juuliya in ay u soo sumaysay saygeedii sanadkii 1650 haweeney ayaa saygeedii koob biyaha ugu soo dartay suntan aqwa tofana inta uusan cabin ayay ka laabatay oo ay u sheegtay in uusan cabin shaki weyn ayay ku dhalisay arintaasi awood ayuu u adeegsaday sidii ay ugu sheegi lahayd waxaana ay qiratay in uu biyaha sun uu ku jiro waxaana gacanta uu u geliyay saraakiisha dalka maamuleysay waxaana ay u xaqiijisay in suntan ay ka soo iibsatay Julia Tofana sida lagu qoray barta All Dad's Interest Julia oo arinta ogaatay ayaa u baxsatay kaniisad maxalli ah oo xaafadda ku taal waqti yar waxa ku cadaatay in ay isticmaasho suntan aqwa waxaana saraakiisha ay ku qasbanaadeen in ay xoog ay ku galaan kaniisadda ayna gacanta ay ku soo dhigaan waxa la soo taagay maxkamad ay ka hor qiratay in ay gacan ka geysatay sumeynta in ku dhow 600 oo rag oo ugu horeeyay saygeedii iyada gabadheedii iyo 3 kalkaaliyaasheedii kamid ah ayaa la daldalay sanadkii 1659 waxaana arintaasi loo ciqaabay sidoo kale in ka badan 40 haween oo sabool ah oo iyaguna xukun daldalaada maray waxaana xabsi la dhigay habeen dabaqada sare nolosha uga jiray kuwaasi oo xabsi daa'ina lagu riday